haweenay madow ayaa nabigeena u timid oo markaa ka cabanaysa xanuunka la yiraahdo qalalka suuxitaanka oo dhici jirtay markaasay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah waan suuxabay ku jir waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaas allah inaga badbaadiyo dadku hayaan allah ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uusan ka warqabin uu miir daboolsamaya gebigiisu maankiisoo dhan baa tagaaya markaasay nabigeena u timid ay tiri innii usrac wa innii atakashaf fadcu allaha tacaala lii an laa atakashafa yaa rasuul allah jidadka ayaa ku dhaca waan suuxa deedna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydii bay tiri xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmay markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in shi'ti sabarti walaka aljanna haddaad doonto janno ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaasoo janna ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwaffa asaabiruuna ajruhum bigayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayada iyo masiibada la soo darista thawaabkooga janna ilaahay ka dhigaya ajarkooga bilaa xisaab baa ilaahay siinaya haddaad doontana waan kuu ducayn ilaahayna casa wajalla inuu kaa caafiyo xanuunkaa baan kuu baryi markaa bay tiri waan isku noqonay ii kaadi deedna way soo noqoto nebigay u timiday markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi yaa rasuulallah waan iska adkaysanaye ilaahay janno ii weydii bay ku tidhi bas iska daa marba haddii janno lagu helaayo halkaa ku dhaaf laakiin mid ilaahay ii weydii meeshaan doon ha iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankaygii uu tegey ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxaa laga yaabaa gabdhaheenna qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkayga halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir azamaan nebigaa sheegay laba qole adduunka iman buu nebigu idhoo soo socota qolo jeeda la wato oo dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdho maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano markaa jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sifi buu nebigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqyada intay ka kaxeeyaan ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdho maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun muumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalluucinayaan buu rasuulku sidaas ku qalqalloocinaysa raguna sidaa u sii eegaya ula qalloocsanay mid baa lagu yidhi war ha eegina indhaha gallaabo wasayannaaha lilnaadiriina laa xawla walaa quwata illa billah jannada gali maayaan buu nebigu yidhi kuwaasi carfiga jannadana heli maayaan jannadana markay carfigeega waxaa la helaa 500 oo sano markay meesha loo socdo qofku u jirto gabadhan muuminaddee saxaabiyaddee madow ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nebiga ku tidhi xanuunkaa haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhacee maradu inay iga baylahmin bas intaa ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allaha raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli aljanna haweenay ahluljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysid haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radiyallahu canha almu'miniin mubashira biljanna keligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday
markaabuu nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kala ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radia allaahu canha umma almu'miniin buu u sidaa uu yidhi yaa muxamed umma almu'miniin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayey waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey ummu anas binu maalik rumaysaa am rumaydaa ayadana waa mubashira biljanna oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku yidhi ummu sulaymey xalay toole jannada ayaan galow ilaahay i tusay adoy hor socdana waan ku arkay rasuulku tusay faaduma ina muxamed calayhi salaatu wasalaam waa iyaduna waa mubashira jannada waa loo bishaareeyey oo nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi faadumata bintu muxamed sayidata nisaa'i ahli aljanna inantaydaa faatuma buu rasuulku yidhi haweenka ummadda nebi maxamed ee jannada geli doona waa gabadha ugu darajo sarraysa u barwaaqa badan buu rasuulku sumaya radia allaahu canha iyaduna waa ahlaljanna oo iyada iyo ninkeedii iyo inankeedii cammaar markuu nebigu dul yimiday ayakoo magaalada maka dhagaxdeeda iyo jagaceega lagu cadaabaayo waa markay diintu qariibka ahayd ee maka la cadaabaaya mu'miniinta ee qurayshi ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nebigu kor yimiday sumaya waa ummu cammaar iyo odaygeygii yaasir iyo inankaygii cammaar oo la cadaabaayo markaasay yidhaahdeen addahru haakadaa yaa rasuul allah sanadka oo dhan annakuma dhibka iyo cadaabkaa baan ku jirayna markaa buu nebigu yidhi sabran yaa aala yaasir fa inna mawcidukum aljanna sabran buu nebigu yidhi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxallii waxaa dhibaato adduunyada la soo daristoo dhan way halmaamayeen iyagu way bugtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nebigu ku yidhi haddaad sabri lahayd jannaa ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf